xalay saqdi dhaxaya la soo gabagabeeyay wararka u dhaxeeya dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab iyo ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya kuwaas oo ku wada dagaalamaya gudaha hotelka Xayaat ee magaalada Muqdisho oo ah hotelkii wararka lagu qaaday laamaha amnigu waxa ay sheegeen in la soo badbaadiyay 106 qofood ay ku jiraan haween iyo caruur dadyo kale ayaa ku dhintay kuna dhaawacmay laakiin wali tiradooda lama xaqiijin taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo warbaahinta la hadlayay goorsi horeysay waxa uu sheegay in laga sugayo dadkaasi tirkoobkooda wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya xilliga tan hadda goobta wax ka dhaceen ayaa idin kala soo hadlaya markii aad fiiriso halkan nadaafad ayaa lagu bilaabay balse hareeraha laamiga goobihii ganacsiga ku yaalay burbur xoogan ayaa ka muuqda gudaha hotelka sidoo kale saakay waxa wali la soo saarayay meedad hor leh gawaarida gurmadka degdega ee ambalaasta wali halkan ayay ku sugan yihiin markii aad fiiriso goobtan burbur xoogan ayaa ka muuqda weerarkii hotel Xayaatna waxa uu noqday mid saacado badan qaata balse markii dambe ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya oo wada jirana halkan ayay ku soo afjareen hadda laamaha amniga gaar ahaan ciidanka booliiska Soomaaliyeed qaybihiisa kala duwan ayaa ku sugan goobtii wax ka dhaceen si markaas ay u sii xaqiijiyaan xaaladda guud ee meesha saraakiil Cabdi Xasan Maxamed Xijaar taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo dhankiisa warfidiyeenka la hadlay ayaa markii ugu horeysa ka warbixinaya qaabkii weerarka ku bilowday iyo sida ay wax u dhaceen muddadii hawlgalku socday hay'adaha amnigu waxay xoog saareen badbaadinta iyo badqabka muwaadiniintii goobta ku sugnaa waxayna ku guulaysteen badbaadinta dad ka badan 106 oo ay ka mid yihiin carruur iyo haween waxaan naxdin leh in meesha ay ku nafwaayeen dad shacab ah oo birmageyda ah tirada dadka ay wax ku gaareen goobtaas waxaa si faahfaahsan noola wadaagi doona wasaaradda caafimaadka hay'adaha amniga ahaan waxaan xaqiijinaynaa in khasaaraha nafeed ee uu ku beegnaa saacadihii hore ee weerarkaas ku raacni uu dhacay intaa kadibna ciidamadu amnigu waxay ku hawlanaayeen inay shacabka ka soo badbaadiyaan iyaga oo dadka qof iyo qolqol uga soo saarayay hoteelka waxaa ummadda Soomaaliyeed waxaa hadda meeshii ka socda nadiifin iyo muxuu ahaa xaaqid waxaan ummadda Soomaaliyeed u sheegayaa inta la xaaqayo nadiifinayo inay u dulqaataan waxaan tacsi u dirayaa dadkii shacabka ahaa iyo kuwii askarta ahaa ee shuhaadada ahaa ee muxuu ahaa weerarkaas ku geeriyooday ilaahayna waxaan uga baryayaa inuu jannatu firdawsa geeyo Faaduma Cabduqaadir Xasan raadiyo TV-ga dalsan kilomitir 4 magaalada Muqdisho